Cooking Channel. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteeda kusoo dhawaada channelkayga Nasra Carfaayo Cooking Channel. Asxaabe insha Allah maanta waxaan sameysan doonaa ama muuqaalkeena ku saabsanaan doonaa insha Allah pasta macaroni al forno amba bechamel insha Allah. Asxaabe haddii aad hore noola joogtay soo dhawow, haddii aad nagu cusub tahayna soo dhawow insha Allah. Asxaabe muuqaalka like saar, sii share garee, la wadaaga asxaabtiina insha Allah. Asxaabe hadeertaan waxaa bilaabaneynaa muuqaalkeena insha Allah. Taawada dabka soo saartay waxaa kusoo shubtay muxuu ahaa ii sheeg saliid. Asxaabe baastadeena marka hore waxaa ka bilaaban doonaa suugada insha Allah. Meeshaan waxaa ku heystaa 2 xabo basal oo waaweyn aan soo jarjaray. Qaabkaasaan u soo jarjaray. Kulama basashaada ee badan tahay, kulama cuntadaada ay sii macaanaanaysa insha Allah. Ha isdheena bismillah Nasra basal badanaa. insha Allah hadeertaan waxaa sugeynaa in saliidan oo kululaanaysa insha Allah. Waata asxaabteeda hadeertaan saliida way noo soo kululaatay, waxaa ku shubanaa basasha. waxaa sameynaa basasha wax yar waa huurina insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaan basasha waa ii yara shiilantay. hadeertaan waxaa ku daraa toon aan soo tumay waaye. asxaabe hadeertaan waxaa ku darsanaa meeshaan waxaa ku heystaa hilib oo soo shiiday waaye, hilib shiidan waaye ku heystaa oo ku shubanaa insha Allah. hadeertaan waa daboolana, waxaa sugaa basasha iyo hilibka inta iska dhex galaan insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaan hilibka oo ii qalalay, wax biyo ma ku darin, biyihiisa iyo basashana biyo dhaleemahayno labadooda biyinay dhaleen oo ii soo dhameystay. hadda meeshaan waxaa ku heystaa oo ku darsan doonaa insha Allah. meeshaan waxaa ku heystaa 1 qaando oo qaandadan yarta ah oo garam masala, 1 qaando oo maraq digaagan ah. maraq digaaga oo qudaarta ka sameysan waaye. haddii aad maraq digaaga neceb tahay cusbo ku bedelo insha Allah. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa nus qaando oo muxuu ahaa ii sheeg oo xoogaa yar dhaafsay, 1 qaando buuxdana aan ahaynin oo paprika powder waaye, barbarooniga shiidan. meeshaan waxaa ku heystaa qaandada afkeeda hore oo filfish ma ku badinaayo sababtoo ciyaala iyo cuni rabo. adi filfil badan haddaa jeceshahay ku badsi insha Allah. cuntada lay kuu macaaneynay, dhibaato ma lahan ayada. hadda intaasaa ku darsanaa insha Allah. pasta macaroni bechamel al forno ma loo isticmaalayo insha Allah wax baradho ah amba karooto insha Allah. hadeertaan waxaa sugaa intaan iska dhex galayaan insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaan waxaa ku darsan doonaa tomato amba shishiidan oo muxuu ahaa ii sheegeen yaryarta ah, xabada ku darsan doonaa. waxaa ka rabaa bes kala guduud ah inay iigu sameyso insha Allah. waata asxaabe hadeertaan waxaa ku darsan doonaa 1 galaas oo biyo ah.
si ay iigu bislaato yaanyada iyo muxuu ahaa ii sheeg hilibkii. halkan galaas biyo markuu soo dhameysto oo kusoo laabanayna insha Allah. waata asxaabteeda hadeertan suugada diyaar ay noo tahay. dheecaankaas yarka waa ku reebanaa ma qalajinaayay. hadeertan waxaa ku darsanaa jeex liin dhanaan ah. haddana waxaa ku darsanaa hal xabo barbarooni yar ah soo jarjaray iyo xabad basal weyn insha Allah. qaabkaas yaryarkaan u soo jarjaray. hadda suugadeena saanay diyaar noo tahay. dabka ka dansanaa. hadeertaan waxaa saaranaynaa baastada isla socod wanaagsan. waata asxaabteeda hadeertaan baastadii aan sameysanaynaa. digsiga dabka soo saartay waa biyeysanaa. hadeertaan waxaa ku darsanaa qaandada yarta ah oo buuxda oo cusbo ah. kadibna waxaa ku darsanaa wax yar oo saliid ah si hadhow baastada iskaga dhadhab insha Allah. hadeertaan waa daboolana. waxaa sugaa inta iiga soo karkaraysa insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaan way ii soo karkareen biyaha. waxaa ku shubanaa baasta makaroonidi. qiyaastii nus kiilo waaye baasta makaroonida. baasta makaroonida hadda isticmaalaa taas cijijada waaye. waata asxaabteeda hadda baastadii ayaa kusoo laabtay. asxaabe baastada hadda sidaana uga dejinaa sababtoo ee foorna loo wadaa hadhow inta dhimo foornada ku dhameysane ayadoo dhimana marka miira hadeertaan waa soo miira isku soo laabanayna insha Allah. waata asxaabteeda hadeertaan waxaa sameysanaynaa sooskii yaraa oo hadhow foornada aan ku gelin lahayn insha Allah. bismillah. meeshan waxaan ku heystaa muxuu ahaa ishag blue band waaye. blue band haddii markaas oo blue band ku dhaweenin waxaa isticmaalay insha Allah muxuu ahaa subaga caadiga ama saliida caadiga cuntada lagu karsado. blue band hadda waxaa ka isticmaalaa hal qaando. waa dhalaalina. asxaabe blue band oo ii dhalaala. haddana waxaa ku darsanaa 2 qaando oo bur ah. qaandada weynta cuntada lagu cuno labadeeda oo bur ah. kadibna waxaa tartiib ugu soo darsan doonaa caano. 2 koob oo caano caadi gasac ah soo qasa waaye. tartiib ugu soo daraa. asxaabe soo dhexgeliyay sooskii. asxaabe idin xusuusiyo sooska markaa sameynaysid maanta dhan waa walaaqaysa ilaa uu kaaga bislaado sida xalwada oo kale ma aragtay. saale loo walaaqa. haddii ahayn wuxuu kaa yeelanaa kuskus. dabkana waa iska gaabine. tartiib caanaha marka tartiibkaas ugu soo darsanaynaa. waata asxaabe haddana waxaa ku darsanaa qaandada afkeeda hore oo cusbo ah iyo qaandada afkeeda hore waxyar oo filfila. ilaan suugada filfil kusoo darsana mahayno. caanihii inta ugu dambeysa ku shubo 2 koob. ilaa 10 daqiiqo camal uu karsami doona insha Allah. kadib waa isku soo laabanayna. saalan walaaqa 10 daqiiqo waa kor taagnaana. walaaqitaankana ma ka deynaa insha Allah. waata asxaabteeda 10 daqiiqo kadib waa kana hadda sooskeena diyaar uu noo yahay. markuu bislaado waxaad ku fahmee sidaas oo soo adkaana insha Allah. waxyar uu soo adkaana. marka hadda dabka ka diminaa
waa diyaarsaneynaa marka insha allah. waata asxaabteeda hadeertan waxaa soo diyaarsaday saxankii foornada aan ku gelin lahaa. marka hore waxaa ku shubanaa baastada. waata asxaabteeda hadeertan waxaa ku shubanaa suugada. waata asxaabteeda hadeertan markaa oo muxuu ahaa isha ku shubay suugada. haddana waxaa ku shubi doonaa sooski. waata asxaabe hadda meeshan waxaa ku heystaa jiis mozzarella jiis aan soo xoqay amba soo hoolay waaye. waxaa ku shubaa waxyar aan badneenin. kadibna waxaa dul saari doonaa baastadii haddana. waata asxaabteeda hadeertan waxaa ku shubaa baastadii haddana. kadib waxaa ku shubaa haddana suugadii. haddana waxaa ku xijinaa sooski. haddana waxaa korka uga sii shubaa haddana baasto. hadda waxaa ku shubaa sooski inta hartay marka insha allah. hadeertan waxaa ku daraa jiiskii inta soo hartay. waata asxaabteeda hadda waa soo wada dhameystay. baastadeena hadda diyaar waaye. toos hadda foornada u gelinaa insha allah. waa shidanaa 3 daqiiq kadib foornada gelinaa insha allah. waata asxaabteeda hadeertan foornada way ii kululaatay. hadda waxaa gelinaa baastada insha allah. asxaabteeda dabka wuxuu ii joogaa 100 kori hoosa ii dooran. timingkana 20 daqiiqo iyo 20 daqiiq kadib baa kusoo laabaneynaa insha allah. waata asxaabteeda baastadeena markaa kasoo bixiyey foornada sidan quruxda badan ee iiga soo baxday maasha allah. waa ujeediin sidan quruxda badan ee iiga soo baxday. waata asxaabteeda hadeertan waa jaraneynaa bismillaah. waata asxaabteeda baastadeena amba qadadeena quruxda badan markaa soo diyaarinay. sidan quruxda badan ee iigu soo baxday waa ujeedaa. meeshan waxaa kaga soo jarjartay jab moos ah, jab oo liin dhanaan ah. markaa sidaas ay u qurux badan tahay. waxaa ku heystaa cabitaan oo kareem ah liin waxaa isku soo daray caano iyo fiimta yar. waa ujeedaa sidan quruxda badan asna iigu soo baxay. waa kaasaa qadadeena quruxda badan. sidan quruxda badan ee markii iigu soo baxday. intaa heesanin allah siiyo, anagina allah noo siyaadiyo. intaa ku kulmi doono muuqaalka xiga. waa walaashii Nasra Carfaayo idinkaga tagaysa kheyr iyo caafimaad, bashbash iyo barwaaqo insha allah. Nasra Carfaayo.